iyadoo ay socdaan isla markaana ay bilaameen ciyaarihii gobolada Soomaaliland ayaa xulka gobolka Saraar uga qayb galay tartankaasi oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa waxa habeenkii xalay soo dhaweyn iyo hadhimo sharafeed u sameeyay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Hindegani. ujeedada soo dhaweyntan ay ahayd sidii ay u dhiiri gelin lahayd ciyaartooygaasi oo iyagu qayb ka ah ciyaaraha gobolada. ugu horreyn mas'uuliyiintii kala duwaneed oo isugu jirtay isduwaha ciyaaraha gobolka Saraar, tababaraha kooxdaasi iyo sidoo kale tababaraha dhinaca ciyaaraha fudud ee gobolka Saraar ayaa halkaas ka hadlay isla markaana uga mahad celiyay wasiirka dhiirigelinta ay u sameysay. wasiirku runtii ugu mahadsanyahay casho sharafta oo inoo sameeyay waxa weeye waa dhiirigelintii koowaad ee caawa soo gaadhay. waxaan rajaynayaa dhiirigelinta ka fara badan inaan helno insha Allah dhalinyaradana mid baan leeyahay kolay hadalka wax yar lagu dheeraanayo waxaa leeyahay kale dhiirigelinta ka badan way rajaynaynaa inaan helno way sii soconaysaa dhiirigelintu casho qudhana ku ekaan mayse waxyaabo badan oo kale ayaa jiri doona haddii Ilaahay raahdo. waxaan idin kula dardaarmayaa kulli maanta meel fiican baad maraysaa wasiirka si gaar ah ayaan ugu mahadnaqayaa sababtoo ah waa wasiirkii koowaad waa mas'uulkii koowaad mid xil haya iyo mid hore hayay iyo mid imka ku soo socdaba gartay nasiibkana u yeeshay inuu idin marti geliyo jaaniskana qaatay dhalinyartu way ogtahay marka mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqayaa. waxaan leeyahay wasiir adiguna aad baad u mahadsantahay runtii casuumadda aad noo fidisay waxyaabahan waxaa ka mid tahay waxyaabaha aanu ka shidaal qaadanayno runtii markaanu aragno dadna garab taagan ama dhinac taagan waxay noo noqonaysaa shidaal ama hub aanu ku dagaalano oo iskaga celino waxa weeye gobolada dhigaya taana waxaan rajaynaynaa inaanu iyadana guul ka keeni doono insha Allah jawaab fiican aanu ka bixin doono haddii Ilaahay ka dhigo. waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa wasiir Hinda oo noqotay mas'uulkii koowaad marka laga yimaado wasiirkii iyo mas'uuliyiintii shalay naga hor yimi duleedka magaalada Hargeysa laakiin mas'uulkii koowaad ee loo sameeya dhiirigelin iyo barbar taagnaan oo inoo bilaabay aad iyo aad baan wasiirkaaga mahad celinaynaa. gabagabadiina halkaas waxaa ka hadashay wasiir Hindegani. mahadnaqa eebadebadeed waxaan soo dhaweynayaa ciyaartooyda gobolka Saraar ee u soo dheelmatay inay magac iyo maamuus u qaadaan gobolkii ay ka yimaadeen. aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa guul baan idin rajaynayaa. waxaan aad iyo aad idinku ballan qaadayaa inaanay noqonaynin markii koobaad ee aynu madashan oo kale ku nimaadno anigoo wasiirka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddana waxaan maamuuskan idin siiyay adna waxa geela kaaga bixin buu waa gaaridaa tahay waa gobolka Saraar iyo anigoo aan ka mid ahayn wasiiradii runtii idin soo dhaweeyay iyagu idinka hor yimi si aan u gudo soo dhaweyntayda qaybteeda si aan u gudo taageerada aan idin hayo si aan u gudo dhiirigelintiina si aan idinku cadeeyo inaan idin garab taaganahay markastaba ayaan caawa madashan idinku yeelay biidnillaahi raxmaan. waxaan dileeyahay ku soo dhawaada caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawaada garoonka cagaaran ee Axmed Dhagax Stadium insha Allah waxaan idin rajaynayaa inaad guusha qaadaan. waxaan u mahad celinayaa tababarayaashiina waxaan si gaar ah u hambaliyaynayaa tababaraha iyo ciyaartooyda ciyaaraha fudud oo maantaba kaalinta koowaad ku soo baxay. waxaan idin kale idin rajaynayaa inaad mid la mid ah insha Allah aad qaadaan. waa wax kooban caawa waa isbarasho iyo inaan idin hor imaado idin cadeeyo inaan idin garab taaganahay idamka Ilaahay. insha Allah waqtigu ugu dambeeya waanaynu kulmi doonaa. waxaanu leenahay annaga idinka mayri doona haddii Saraar idinka seexatay tababarayaasha iyo dhalinyarada ciyaartooyda waxaan leeyahay guul baad hagoogan doontaan insha Allah tacaala. garbihiinana waanu tubnaan doonaa samir iyo dulqaad baan idin rajaynayaa dadaal iyo dhiirani baan idin rajaynayaa. Cabdiqaadir Cudi, Cable TV, Hargeysa.